waddani maxay kula tahay xalka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay waryaaya wayga su'aale odagii daldalmaayo sida caadka daruurtiyo roob xagaayee da'ay durba ma iska qayooday su'aasha aan kaaga jawaabay qof kastoo degdegaa dabka waa ku dhacaa hedaamankaa jug la siiyey anagoo da'leyda karhaw darin hooba gubita dariska dhibaase dabkuus weydada ahna deernay war abween hadraawiya horey wuxuu yidhi danuunac bukay laqeen dalqay wax ku eegayaan war horaa loo yidhi damacaga hadduu bato indhuhu kaa ridaa aniguna aan ku sii darsadeehow daryeelkii ma diyaarisiin dadkaynii daalay hadeege daryeelkii ma diyaarisiin dadkaynii daalay hadeege abdulla widaaye inus murjiidoy eel shidaal ee walekiin bujye afartaada tergoodaa iska dhaansee bulsha nabad qabta habka beretanka baasaha fakhriga sida looga baxo ku ballami karto boqolkiiba boqol ayagoo bad qaba qarankooda bilan baa allaha qabtee baranaya dagaal bahdu kala qabto buntuq caaradii lagu kala baxaa baana allow war goormaa buntuq noogu dambaysay carruurtiibaa bumba laga dhigtaa hadde bilaayo moosaw bilow ow rahmaangana badbaadihe mad isaaqow mahmaahyadaas horaan kaaga maqlo waxaa tidhi biyow warkaaga buuraakii dheegay warnimay anugu waxaan la yaabay wasiir maareeye wuxuu yidhi guddiyaan magacaawnay wax soo saarka dalka dibadda u suuqgeeya marka waa su'aale soo saarka iyo suuqgeynta horta tee horraysa midda kale dunida wax loo suuqgeynaya dalalka wax loo suuqgeynaya nooma sheegin war soomaalilana kow ka ah war sun ha laguu qasee soomaaliya oo dhana injiyoon noqotay qof walbaaba wuxuu rabu iska sheegayo war adeerow heestaas wasiir maareeye ma samayn wasiir beylaa sameeyey waxayna ahayd adaa moogow hurdee soomaaliya waa mashruuc war sidaas ma hayna heestu waxay ahayd roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roonow allow yaan lagugu cunin abdulow codkan quruxda badan leh warwar ma haysiine wasiiradii siilaaye qaar ka mid ah xamar joogo war adeerow kuwii muuse biixi caawa ayagaa ka dambeeyey war kuwii siilaayaa marka hore xil raba oo yimid kuwa muuse biixina marka xilka laga qaado ayay imanayaan war mas-uuliinta somalilan kuwa xagga jooga marka xilka laga qaado muqdisho ay imaanayaan kuwa muqdisho jooga marka xilka laga qaado xagga ay aadayaan kala wareeg maynagu bilaabeen war taasi waxay dan u tahay siyaasiyiinta anoo kale oo boos cariirsiga warnimayo waran anii haya wasiirka gaashaandhigga masar amar dambe berigii la magacaabay wuxuu tegey wasaaradda gaashaandhigga iridda markuu ka galay buu wuxuu arkay sawirka jenaraal daa'uud cabdilla xirsi kadibna markuu xafiiska fadhiistay oo biyo u cabay ayuu wuxuu yidhi jenaraalka aadka u labisan ee iridda ku sawiran halagu wuxuudha markaasaa waxaa la yidhi wasiir ninkaas waa jenaraal daa'uud laftirkiisa halagu yeeruu yidhi warniya markaas waxaan ku soo xasuustay ayaa horaa weriye farxaan la yidhaahdo waxaa la yidhi guddoomiyaha gobolka maxmed dheera shijirayd qabanayeen ken difutiriso inta soo wuxuu yidhi halii ogaado shijirayd guddoomiyaha gobolka maxmed dheera qabanayaan u socdaaye warnimay warkiinna waxaan u fahmay wasiirro iyo wareeyayaal aan shalay ogayn baa shaqaynaya war reer kalamaana waana siin dardaarame runsheeg eebsheeg walaari ino warkin badlo mayka obsideey habsiga lisiinka aruuri oo koroneel shuutana suuratulmaa'ida siinka kor akriye madasa warjara xaadka qosle qur'aan in korka layga saaro anaa ayaanta u oomane war haddaad qur'aan saar rabtid mawlaca korneel shuutaad ha lagu dul akriye arigeeya aan tahliilka soo qaadhe warnimayo madaxweyne qaatumo jenaraal cali khalif galayr intee buu ka baxa war yuusuf cali samatar weydii war asagoo muuse bixi silaayo ku dacweynaya igu war dambaysa ninkaas war madaxweynaha soomaaliya waa ka soo laabtay addis ababa yuweri museveni inuna soo kulmaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay yuweri museveni shalay soomaaliya dawlad maaha waa kii dhahayay madaxweynuhu arrintaa ma kala hadlay oo nin yahow roodmaabkii horaa kugu dul qaadanaynahay dulmiga jooji ma yidhi war madaxweynaha midowga afrika farmaajo looma dooran madaxweynaha masar jenaraal alsiisi baa loo doorta yaa siisii ma waysan ahayn tii sanca agteera ku tiilashimaa maamul goboleed loo aqoonsaday madaxweyne yeelatay war madaxweynaha masar hadduu laba madaxweyne loo doortay madaxweynayaashii u xirnay buu soo sii daaye
warnimay anu waxaan la yaabanahay dawladdeenu maxay uga aamusan tahay arrinta Venezuela warya dogonka gano masaar maadi mooradii la koodo mooradayna oodase wasiirka arrimaha dibadda in sheeg warkaas war wasaaradda arrimaha dibadda waa tii waraaqadaha isdaba joogga soo saari jirtay ayaantan habacsanaanta gashay waa maxay Venezuela loo yaacayaa wareer waxaan u malaynayaa deegaanka batay warnimay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf wuxuu faragelin ku sameeyay la yiri doorashada Nigeria war ra'iisul wasaare Shaakir miyuu Nigeria madaxweyne uga dhigi rabaa war qaniya ka fujisaa la yiri hadii faragelin laga dayn waayay Afrika inuu farageliyo xaq u leeyahay yaa taas aad ka sheegaysin madaxweyne waaraba wuxuu farageliyay Burundi wuxuuna yiri ciidamada Burundi ma bixi karaan ay koon nabad ka dhigin shabeellada dhexe war madaxweynaha koonfur galbeed markuu qaramada madoow farageli waa tii ay samxilka laga qaaday warya wal mooshiidin madawiine lafta gareen oboro Mansuur suwahan dhina isku nagaday ma faragalan waa faragashay anti ingiliingana war Axmed Madoow markuu farageliyay Soomaali galbeed waa tii Cabdi Ilaahay xabsiga la dhigay qalab dhigaxna la soo daayay agsharna cirka laga soo riday aryaadaha anigu xala waxaan ku riyooday Soomaaliyo midnimo taam oo barwaaqa gaartay war adeer riyada guluuda lama arkay anigu waxaan ku riyooday Soomaaliland gooni u taagan oo ictiraaf caalami heshay riyadeeduna waa muqaddis warnimayow labadan riyayay saakiina baabiina kala badbaadsada ana bariyo dhaxow iga daba riyoha isagu haddaan eegno rugtay furan yihiin reerihi iyo beeshu ratigawana qurbac riimayo geeli laga reebay ayaa roobadii saaran tahay dheelina u raran raaleyda waa ka suusaday rukoobiliku guuri oo dhoole ee lanka tabay rabbow rahmaanow riidi oo dhooleynin kuweeloy waxa u dhihi jira saaxiibkay beeni raad male beeni raad male liila law run mamooda jaga bannaan aaw xildoonkii fursad baan u hayaa war cadaalad darada jagadaas 4.5 ku soo xulismiya horta jagadu maxay tahay maadhaad intaada foorka ku ordin feeruha ku jabaan war haday madaxweyne tahay anaa u taagan aniga wasiirada hal layga dhigo anigana xildhibaan ku xigeen hal layga dhigo gudoomiye bangiyo muslima hadii la rabo aniga layga dhigo war aniga jagadaas ma qaane madaxa qaban qaawada xalfadaha nabadii nool la dhigo anigu xalfad xil leeyraada waligay ma arkay ee maandhaw cageed ka keentay yaa xadu la yaabay Gmail waa leeyahay dad waalanaati caashaqiin yaa idin la taraaraxay jagadu waxay tahay ma taqaanin wasiirka qurba joogtu waa boos naga bannaan dawladaha kalena waa leeyihiin oo dadkooda tahriibeen sidanoo kale ra'iisul wasaaruhu ma ogahay inay bannaan tahay jagadaasu naga tag waana wareerisay jagadaas qonta saranin qurbaha joogayoo timihii ka bideen ay u baahan tahay war wasaaradaha midba qabiil ah loo waardiyeeste wasaaradda qurba joogta yaa yeelan doona talow waliyo jagadaha Soomaaliland la siiyo ayada dadkeedu bari hore qurbaha tageenay Soomaaliland oo baatin jagadaas la siinsiye laakiin shuruudo may laptop garabkan ka jira madiyayna tin haliinto lanka aragaan aka jacleena galanta ka hayso okiyaala midowna fuulo siinka faday suudna ka jar wiliba af ingiriisiga ka hadalaw waxa aaga qada jaclaa qoyaanku ugu jiro kurburooda leere wariya qorax joogtu wasiir xaq uma lahan miya wariya wasaaradda haweenka ba hadii la sameeyay wasaaradda ragga maxaa loo sameeyay waay soo cadaalad darro maaha warwar ma haysin jubada hoos cirka looga soo dhacay amiirna waaweyn waxa la meesha waa ku baxeen qaraxyo badan waa la qabtaa oo la diyaariyay aryaa qarax iyo amiir dhinta nuguma cusbay wax kale ama haysa qandha calool weyn qaad war gudoomiyaha gobolka Banaadir waay waxa burburiyay guriga la sheegay in sharci darro ahaayeen oo kaaraan ku yaala wariya wixii sharci darro in la burburiyo waa istaalaan wixii sharciyan la dhaafay yaa dood ka qaba aryaa Soomaalida qof walba waxa uu rabaa sharciga ma taqaanid horta Soomaalida inta cadaalad rabtay inta cadaalad darrada rabtay yaa badan war ka baxa madog oo cadaanka u boodanayo war horta guriga islaamad binaayada yaa soo tiro